Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada muuqaal cusub. Muuqaalka waxaan kaga hadlayaa sida u adeegsan lahayd colorska kala duwan ee uu bixiyo barnaamijka caanka ah ee Photoshop. Haddii aad doonayso shayaal meel wada yaalla in aad mid walba colorka uu leeyahay aad bedesho adigoo aan saameyn ku yeelanaynin kuwa kale amase backgroundka ay meeshaasi leedahay. Haddaba wadada kaliya aan u marayno ee fudud ayaan ku bari doonaa ee ku soo dhawow muuqaal cusub. Tusaale halkan saddex qof ayaa fadhida dhar kala midab duwan way qabaan. Wiilkan fanaanada buluuga uu qabo ayaan rabnaa inaan colorka ka bedelo inagoo aan dadkaas colorkooda iyo isaga midabkiisa midna kala taabanayn ayaan fanaanadaas bas bedelaynaa. Marka si aan u bedelo fanaanadaas colorkeeda waxaan leenahay select mid ogow haddii layer highlight ku saaran tahay waa ay ku suurtagelaysaa in hawsha qabato, laakiin haddii uu saan ka yahay xataa faylka aad ku bedelaysid ma soo qaadan kartid. Marka waa inaad highlight saarto kadibna select dheh, waxaad dooranaysaa color range wuxuu ku leeyahay inaan color soo qaadaan u baahanahay sida u jeedid falaarta. markaan xagga banaanka u saaro way isbedelaysaa, afar gees ayay noqonaysaa, calaamad afar gees oo sidii diiradii oo kala ayay noqonaysaa. markii aan soo celiyana calaamadii mouska caadiga ahayd ayaa imaanaysaa. marka waxay diyaar u tahay inay color soo qaado. waxaan leeyahay colorkan buluuga ayaan bedelayaa. hadda waxaa highlight ah colorkaas buluuga, marka okay ayaan leeyahay. marka sida aad u jeedid meeshan waxyaalo badan oo buluug ku jiray ayaa highlight noqday sababtoo isaga colorkan u dirnay wuxuu ahaa buluug. marka waa inaan kuwan kale iska reebno, fanaanadan kaliya aan la soo harno. si aan u reebno waxaan tagnaa selection tool kadibna minus baan dooranaynaa. waxaan kala dhan iska soo tirtiraynaa, waan soo tirtiraynaa waxaan kala dhan uma baahnin baan leenahay. xataa kabihiisa inaan bedelo ma rabno, waan iska soo tirtiraynaa iyo gabadhan kabteeda. okay, fanaanadii ayaa hadda soo harnay, plus ayaan ka soo dhiganaynaa kadibna click ayaan halkan siinaynaa. halkan geeskana click baan siinaynaa, geeskana click baan siinaynaa. hadda waxaa diyaar ah fanaanadii bas. marka maadaama fanaanadii kaliya ay diyaar tahay muhiimkeena wuxuu ah inaan fanaanadan colorka ka bedelo. haddii aan noqdo halkan waxaa moodaa inay wax yar ka muuqdaan oo weli ay wax ku jiraan, marka minus ka dhig. waxaa yar ma raba iga tirtirdhe, ma doonayo waxyaalahan kale dhan ma rabo. balaaskayga igu celi. okay, maadaama fanaanadii diyaar tahay adjustment layer baan leenahay kadibna hue saturation baan dooranaynaa. kadib gacantan ayaan qabanaynaa, colorkan waan bedelaynaa, marka waan jiidaynaa meeshaan rabnaa keenaynaa. okay, halkaas kaas ayaan u daysanaynaa. marka haddaan kaas u daysanay waxaan ku tusayaa colorkii hore iyo colorkan farqiga u dhexeeya ayaan ku tusayaa iyo sida ay kala noqdeen maadaama aan bedelay shaygan colorkiisii dhan aan ka bedelay. waxaan rabnaa inaan ma garanaysa aan colorkii hore ku tuso. colorkii hore buluugaas ayuu ahaa, kii dambe aan samaysanana waa kaas. okay, si bedelo ujeedaa. marka sidaa fudud ayaa loo sameeyaa. fadlan casharkan haddii aad ka heshay ama uu ku cajabiyey fadlan comment, share, like and subscribe. sidoo kale share gare oo walaalaha la sii wadaag. aad waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.